digniin. ujeedada aan muuqaaladan u soo gudbiyaa waa inaan ka caawiyo inuu qofku soo jiito qofka uu rabo inuu nolosha la wadaago ee ujeedadiisa ugu dambaysa tahay guur. sidoo kalena aan lamaanayaasha ka caawiyo in jacaylka dhexdooda yaalay dib u soo celiyaan siina xoojiyaan. ujeedintaa ka badan oo aan u soo gudbiyaa ma jirto. haddii ujeedadaadu tahay inaad xogtan qof ku qiyaanto, jacayl been ahna ku abuurto, muuqaalkani kaagii maaha ee fadlan iskaga noqo daawashadiisa. kama mas-uul ahi dhibaatada kaa soo gaadha haddii xogtan aan ku siinayo aad si qaldan u isticmaasho. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, ku soo dhowaada wax ka bara channel. muuqaalkeennan maanta waxaan kaga hadli doonaa hab awood badan oo aad ku soo jiidan karto qofka aad jeceshahay. haddaba ka hor inta aynaan u gudagelin muuqaalkan, ha iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkaa yarna aad dhag ka siiso si aanay ku dhaafin muuqaalada xiisaha badan ee aan soo wada. aynu bilaabanno mawduuceena. cilmiga dhaqaalaha ama ekonomiga ayaa waxa uu yidhaahdaa haddii shay helistiisu yar tahay waxaa sare u kaca qiimihiisa. haddii shay helistiisu aad u badan tahayna waxaa hoos u dhaca qiimihiisa. mar kasta oo badeeco ama wax la iibinayo uu dalabkeedu badan yahay oo dad badani rabaan, waxaa dadka ku yaraanaysa inay helaan. taasina waxay sababaysaa in qiimaha shayga ama badeecadaasi uu sare u kaco, qaalina noqdo. haddaba waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya arrintan iyo jacaylka? haddii aad rabto inaad qof soo jiidato, waa inaad badanaa xasuusnaataa in mar kasta hadafkaagu noqdo inaad sare u qaaddo qiimahaaga inta aad awoodo, si qofka aad beegsanaysaa uu kuugu tixgeliyo qof muhiim ah oo u qalma oo uu xidhiidh la wadaagi karo. cilmi baadhisyo kala duwan ayaa waxay caddeeyeen in qof uu u arki doono in qof kale qiimihiisu aad u sarreeyo haddii qofkaa ay ka helaan oo ay ka daba dhacaan dadka aanay isku jinsiga ahayn, marka loo eego ee la barbar dhigo kuwa aan iyagu sidaa ahayn. haddii aan si kale u idhaa, markay dadku ogaadaan inay dad kale ku rabaan, waxaad ugu muuqan doontaa qof aad u soo jiidasho leh. haddii aad hesho hab aad uga dhigi karto qofka aad beegsanayso inuu u maleeyo in dalabkaagu badan yahay oo dad badani kaa helaan, waxaa hubaal ah inaad u muuqan doonto qof aad u soo jiidasho badan. anigu shakhsi ahaan qodobkan waxaan u tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah xeeladaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad isticmaasho markaad rabto inaad qof soo jiidato. dadka caanka ah ee aynu naqaano qaarkood maaha qaar muuqaal ahaan soo jiidasho badan, sidoo kalena maaha qaar haysta wax ka badan waxa aad haysato. marka laga yimaado inay leeyihiin boqolaal kun iyo milyanaan taageerayaal ah, sababtaas ayaana keentay inay kumanaan qof jeclaadaan. inaad samayso xeeladan ah inaad qiimahaaga sare u qaadaa kordhin mayso oo keliya qiimaha aad ka ag leedahay qofka aad beegsanayso ee taargetka ku ah, balse sidoo kale waxay qofka ku sababi doontaa inuu ku arko qof aad u soo jiidasho leh. haddaba raac tallaabooyinkan aan hadda kula wadaagi doono si aad qiimaha aad qofka ku ag leedahay sare ugu qaado una soo jiidato. hel saaxiib aad labadiinuba wada wadaagtaan, si fiicanna kaaga hadla markaad ka maqan tahay. haddii aad wiil tahay, hel gabadh la saaxiib ah qofka aad soo jiidanayso oo aad adiguna saaxiib tihiin. haddii aad gabadh tahayna, hel wiil ay saaxiiba yihiin qofka aad soo jiidanayso oo adiguna aad asxaab tihiin. kadib qofkaasi markuu la joogo qofka taargetka ku ah adna aad ka maqan tahay, aad ha ku ammaano ama ha kaaga hadlo sida aad cajiib u tahay. xusuusnow, arrintan waa inaad u samaysaa si aan toos ahayn oo aanu qofku dareemayn. sababtoo ah haddii qofka aad soo jiidanaysaa uu ogaado inaad ka dambayso xeeladahan oo aad adigu waxyaabahan samaynayso, ciyaartaadu halkaa ayay ku dhammaan doontaa. adiga laftarkaagu uga hadal si aan toos ahayn sida ay dadka kale kaaga helaan, kaagana daba dhacaan. tusaale ahaan, waxaad ku odhan kartaa, shalay waraysi shaqo ama interview aan galay, waxaan ogaaday inay aad iiga heshay qoftii waraysiga iga qaadaysay, sababtaasaanan shaqadii u helay. hadalladaasi qofka saamayn weyn ayay ku yeelan doonaan, waxaanu aamini doonaa inaad tahay qof qiimo sare leh. uga hadal una magacow dhammaan ammaanta aad ka hesho dadka kale si aan toos ahayn oo dadban. taasi waxay qofkan aad soo jiida isleedahay ku abuuri doontaa dareen ah inaad tahay qof aad looga helo. muuqaalkaaga had iyo jeer daryeel oo qurxi. hal qalad oo ay dad badani sameeyaan kadib markay guursadaan waa iyagoon daryeelin muuqaalkooda iyo sida ay u egyihiin. inaad daryeesho muuqaalkaaga iyo caafimaadkaaguba oo aad ka shaqaysaa aad ayay muhiim ugu tahay inuu xidhiidhkaagu muddo badan sii waaro oo uu sii jiro.
haddii aad xidhiidhkaaga serious ka tahay ha dayicin hana iska indhatirin muuqaalkaaga xataa haddii ay 10 sano ama wax ka badan ay guurkaagii ka soo wareegtay. xataa markaad guursato waa inaad u sheegtaa qofka lamaanahaaga ah marka uu qofku ammaano. dabcan masayr inay qofka ku sababto waa laga yaabaa, balse haddana waxay lamaanahaaga u caddayn doontaa inaad weli tahay qof dalabkiisu badan yahay oo dad badani ay kaa helaan. ma aha inaad been sheegto si aad dadka kale u tusto in dadka kale kaa helaan, balse waa inaad si yar oo xadaarinimo ah qofka ugu sheegtaa sida ay dadka kale ku xiiseeyaan. qiimaha aad qofkaa ku ag leedahayna cirku isku shareeri doonaa. dhinaca kale waxaa jira hal qalad oo caan ah oo dadku ay sameeyaan markay farsamadan isticmaalayaan, kaasi oo ah inay aaminaan in nooc kasta oo dalab ahi ka dhigayo mid qofkan agtiisa qiimo uga yeelaya. taasina sax maaha. mararka qaar dalabyada aad helayso iyo dadka kaa helaya ayaa waxaa laga yaabaa inay noqdaan qaar aan wax saameyn ahba lahayn. xataa waxaa laga yaabaa in dalabyada aad helaysaa ay dadka qaar ku sababaan inay kaa aaminaan inaad tahay qof liita. si uu dalabkaagu u noqdo mid shaqaynaya oo qofka aaminsiinaya in qiimahaagu aad u sarreeyo, waa inaad beegsataa qofkaasi dadka uu u arkayo inay qiimo sare leeyihiin. tusaale ahaan, haddii gabadha aad beegsanayso ee taargetka ku ahi ay aad ula dhacdo gabadh ay saaxiiba yihiin oo ay u aragto qof qiimo leh, in saaxiibadeeda ay la dhacsan tahay ay adiga kaa heshaa waxay qofka taargetka ku ah ku sababi doontaa in qiimaha aad agteeda ku yeelanayso iyo aragtida ay kaa haysataa ay noqoto mid sare u kacda. xataa haddii aanu jirin qof saaxiiba ah oo aad wadaagtaan ama idinka dhexeeya, waa inaad ogaataa dadka uu la dhaco ee qiimaha ka ag leh qofka aad beegsanayso. intaa kadibna aad tustaa in dadka qaar ka mid ahi adiga aad ku taageeraan. waxaa jira milyanaan sheeko oo qof markiisii hore aanu qof xiisaynayn, balse markii dambe ay ka daba dhaceen qofkii kadib markii dhowr qof ay u ammaaneen isagoo ka maqan. ugu dambayntii qof kastaa wuxuu rabaa inuu helo qof u qalma oo ku habboon. haddii uu qofku dareemo in qof aad loola dhacsan yahay oo dad badani ay ka heleen, waxaa hubaal ah inuu isna qofkaa ka heli doono. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku dhan yahay. ha iloobin inaad fiidiyogan like saarto, sidoo kalena subscribe saar channelka si aanay ku dhaafin muuqaalada dambe ee aan soo gudbinaya. lana sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada. tan iyo kulankeena kan xiga. nabaday.